دكتورة عائشة حسين محمد waxaan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo hadda meeshan iska keenadan waxaan u sii mahad celinayaa groupka saxan door salaan mahad celin kadib horta taabuga saameynta weyn ay yani bay family ahaan ay noo geysatay sida uu doctorka sheegay gabar jaariyad ay noo joogtay aniga waan iska bixinaa waxbarasho ayaan aadi jirnay inantii waxay ahayd hal sano jir ah inantii oo waxaan arkay yani oo wax macaweyso dhareerkii matag way wadaadeen maalin waxaan arkay anigoo sidaan jaamacad ugu imaaday gabadhii oo yani waa markii ugu horeysay taabug arkayo naagtii soo isticmaashay inantu way guguuratay afka gashatay taabugi way cuntay ma ogaanay macaan waraaqadii waa isku cunaysaabo maalin waxa la ii sheegay gabdhaha aad u sii qusaysaay in dumarka guryaha ka shaqeeya oo maxaan ku raahdaa jaariidaha dhammaantood inay darooga isticmaalaan ma jirta waa dhici kartaa Soomaa bal ina aragteen baa laga yaabaa waxa la ii sheegay gabdhaha guryaha ka shaqeeya dadka ay u shaqeeyaan inay u soo gadaan oo ay lacagta ka bixiyaan oo ay kaniiniyo iyo isticmaalaan taabuu iyo balaayo si ay shaqada u qabtaan oo ay horay ugu dhameeyaan oo aysan u daalin imagine marka macnaheedu marxaladdu waxay maraysaa meel aan la sawirin karin ya ciyaalkaaga uma ogolid inay darooga isticmaalaan laakiin gabadha maskiinta ee ku shaqeynaysa waxa uu ogolaatay inay darooga isticmaasho ma diiday in ciyaalkaaga iyaga ka baran doonaan daroogada mararka qaar inay jab markay iyada cunto jabka kale ay afka u gelinaysa ma diiday gabadhana way is ogtahay waxay ku leedahay maalinkan loo keenin maanta waa iga jajaban tahay macnaheedu waxba ma qaban karo waa in dukaanka la tagaa daawooyinkeeda iyo taaboogeeda loo keenaa hadii kale waxa ma shaqeynayaan mujtamac kasta marka la dagaalamayana dhinacyada laga soo maray way ka mid tahay anu waxaan aaminsanahay marxaladda maanta aan ku jirno marxaladna loogu talgalay waa marxaladda anagu iska galnay ma noomana qalanto in taaboo uu dukaan walba yaalo oo ciyaalka iskuulka dhigta ciyaalka iskuulka dhigta waxaan u maleynayaa 2 bil ka hor baa waxa weeye Cabduqaadir iyo Saxadowr iyo aniga aan research ku sameynay iskuulada la booqday ciyaalka iskuulka dhigta primary iskuulka dhigta shandadooda taabooga laga helay imagine marka mujtamac ciyaalkiisa primary dhigta ay daroogaysan yihiin waxa laga sugayaa muxuu yahay adduunka waa lagu dagaalamaa wadamo badan la isku dayay in la daroogeeyo oo lagu guuleysan waay waxa akhrisaan opium war waxa weeye dagaal la dhaho oo reer galbeedka ay ku qaadeen China wixii China iyo reer galbeedka dhexmaray aqriya wax kale loogama dan lahayn waxa looga dan lahaa in dadka Chinese-ka ee shaqaysta ee naturally u nool in la daroogeeyo waa lagu guuleysan waayay waqtigaas laakiin hadda waa lagu guuleystay hadda way iska daroogaysan yihiin laakiin markaas waa lagu guuleysan waayay mujtamaca Chinese-ka uu dhisnaa qiyamkiisa dhisnaa waxa weeye darooga ma isticmaali jirin dumarku isma qaawin jirin dad waxay ahaayeen fidradii Ilaahay uu ku abuuray ku nool gaalaha ahaadaan laakiin fidradii Ilaahay ku abuuray bay ku noolaayeen maanta laakiin wadadii la rabay mareen annagu the same baan nahay wadadiina la rabay baan marnay ku yaro xaafadda jooga wuxuu jiraa 6 sano hadda galaaska koowaad la geeyay waa 6 jir exactly maalin dhaweyd baan anoo qof kale ooga sheekeynayo leh waxa jira wax taaboo la dhaho oo maxay kan oo sidoo dadku hadda isticmaalaan waa 6 jir ya wuxuu yiri taabooga la sheego kan bacdayr ku jiro oo la furo inta la gashto Soomaa waa 6 jir ya waaya waxaan ka shalaayay in agtiisa qof kale ooga sheekeynay taaboo aan waxaan islahaa waxaan wuxuu fahmay wuxuu dhowmaa mugto waa nin fahansanba uu soo arkay bacdina wuu yaqaan in meeshan la geliyana wuu arkay waxa ka dhiman on ciyaalku waa taqaan markaan ciyaal ahayn oo dhan waxa nugu jirtay wax tijaabiye wax kasta inay tijaabiyaan jecel yihiin waxa u dhiman on inuu hal maalin is yiraahdo shaygan tijaabi maalinkuu tijaabiyo maalin labaad maalin saddexaad waa addicted ya waana 6 jir wixii intaas ka dambeeyay shandadiis ku ridinays wax walba marka la siin maxaan ku raahdaa lacagta bareega ku labadiisa kun la sii maraaya marka khatartu meel waxay maraysaa halis ah waxaan u baahanahay in qof kasta ay message-ka uu halkan ka qaado oo isla maanta ku apply gareeyo gurigiisa ciyaalka gurigiina jooga la sheekaysta
jaariyadaha idin shaqeeya la sheekaysta ciyaalka xaafadihiina jooga la sheekaysta wax idinka yaabiya arki doontaan horta dagaalka lagu jiro dagaal sahlan ma aha ogaada dagaal sidan fudud ku dhamaanaya meelaha aan ka hadlayna ma aha ogaada qof kasta marka mas'uuliyaddu hadda mas'uuliyad wadareed waa ka soo gudubtay mas'uuliyad wadareed cidna ma qaadi karto cidna dagaalkan xitaa dawladda Soomaaliya ma gali karto waa dagaal xitaa dawladda Soomaaliya aysan gali karin oo ka weyn macnaha qof kasta ay familigaaga iyo gurigaaga iyo inta kugu hareeraysan kala dagaalan waxan